sanadkii 94 Hijriga. Ilaahay wuxuu ku manaystay mu'miniinta inay furtaan bilaadu Sind oo maanta loo yaqaano Bakistaan. Sababta ka dambeysay markii laga soo tago faafinta Islaamka iyo dacwada waxay ahayd doon ay saarnaayeen gabdho muslimaad ah ayaa waxaa qabsaday burcadii bilaadu Sind. Doonta waxay u socotay Al-Basra ee ku taala dalka Ciraaq. Waxay soo martay dekedda Tibil ee ku taala bilaadu Sind. Kadib Al-Xajaaj bin Yuusuf oo ahaa xilligaas waaliga Ciraaq wuxuu qoraal u qoray boqorkii Sind isagoo ka dalbanaya inuu soo daayo gabdhaha iyo doonta. Laakiin boqorkii wuu ka cudur daartay isagoo ku marmarsiyoonaya in kuwa doonta qabsaday ay yihiin tuugo uusan waxba ka qaban karin. Kadib Xajaaj wuxuu diray 2 ciidan oo kala dambeeyay, laakiin labadiiba waa laga adkaaday. Wararkii waxay soo gaareen Xajaaj in gabdhihii iyo ciidankii uu diray lagu xiray xabsiga Dibil ee ku yaala isla magaalada Dibil. Halkaas markay marayso, Xajaaj wuxuu bilaabay inuu diyaariyo ciidan aad u badan, tiradiisa lagu sheegay 20,000 oo ku qalabeeyay 60 milyan oo dirham. Wuxuu hogaamiye ugu magacaabay Mohammed bin Qaasim al-Thaqafi oo 17 jir ahaa. Wuu baxay Mohammed, Ilaahayna wuxuu qadaray in bilaadu Sind uu soo furto, waxaana loogu magac daray Faatixu bilaadi Sind. Ku taageer Zainab Canal, like, subscribe and share.